بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استون نقدر يعني إنسان هل كان نواجهنا الكيني عقتي الدنيا ده CID برو تي في وررك ورئيسية ده وحن أسوي جوجي وأتكلم عن على ورر برنامج كل الدول يوررك يقدم بيا الدنيا ده أفريقيا لباتن كي صعبة إلا دور شير أنه يدين سو قد من أدين كو كده هذا الجودهم بدأ على الدنيا ده ما أنت وامالين إسنين واسد هذا بشا أغسطس لبدا كون يلحي لباتن كوررك عالم كي الدنيا ده وحقوقه وين أرنت قبل كبرق دحيه oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump uu sheegay inuu hakiyo weerar lagu qaadi lahaa dalka Iran isagoo qiil ka dhigay inay codsi uga yimaadeen Iran iyo wadamada gacanka iyo meelo kaleba waxa uu sheegay in dawladda Mareykanku ay diyaarisay barnaamij aad u ballaaran oo ah mid faraha looga guban lahaa marka la fiiriyo qaabkii sida loo wajaho arrimaha muhiimka u ah dalka Iran sida xarumaha dhinaca tamarta iyo goobo kale laakiinse dawladda Iran wasaaradooda arrimaha dibadda waxay shaaca ka qaaday wax codsiya inaanay jirin ee loo gudbiyay madaxweynaha dalka Mareykanka oo ah dagaalkan laga hakiya oo hana weerarina hadaynu nahay Iran taasoo ay sheegeen inay tahay mid kamid ah beentii ugu dambeysay ka timaada dhinaca madaxweynaha dalka Mareykanka laakiinse marka la fiiriyo wadamada gacanka boqortooyada Saudi Arabia dhaxal sugaha Mohammed bin Salman ayaa sheegay wakaalada wararka ee Sacuudiguna ay sheegtay inuu telefoonka kula xiriiray kulana hadlay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump isagoo ku tirtirsiyay una sheegay inay habboon tahay in fursad la siiyo wada hadalkii diblomaasiyadda oo aan lagu degdegin dagaal kale inuu markaa la dhaco Mohammed bin Salman ma aha markii ugu horeysay arrimahaasi dhinaca Iran oo kala hadla dawladda Mareykanka laakiin iminka waxay u muuqataa inay arrintani tahay arrin uguba oo marka la fiiriyo ka dambeysatan iyo intii isfarasaarkii dambe uu yimid waxaana uu shaaca ka qaaday dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia in loo hiliyaa nabadda inay tahay midda ugu wanaagsan oo ay tahay in la qaato madaxweynaha Mareykankana sidaas uu u sheegay sida ay sheegayaan wakaaladaha wararka ee boqortooyada Saudi Arabia dhinaca kale dawladda Iran waxay shaaca ka qaaday inay meel fiican oo gabagaba marayaan wada hadalkii Iran ee la lahayd saldanada Oman ee ku saabsan gacanka Hormuz iyo qaabka markaa loo maamulayo labada dal ee saldanada Oman iyo Iran wada hadallo ayaa jira hore u dhacay oo wafdi ka yimid Oman ay joogeen Tehran laakiin hore loo sheegay wada hadalkaasi inuu noqday mid aan wax faa'iido iyo wax guul ahba yaraatay aan laga gaarin laakiin iminka ay u muuqato hadalka ka imanaya Tehran iyo maamulayaasha marka la fiiriyo gacanka islaamiga ee dalka Iran uu yahay mid yidiilo cusub muujinaya laakiin uu ku saabsan gacanka Hormuz qaabka labada dhinac Iran iyo Oman maadaama labada dhinac ee waqooyiga iyo bariga iyo koonfurta ay ka joogaan ay u maamuli karaan laakiin saafayaan u hadlay marka la fiiriyo wadankaasi Iran waxa uu shaaca ka qaaday heshiis kasta oo saldanada Oman iyo Iran ku saabsan ee dhinaca marka la fiiriyo marinka Hormuz inuu noqon doono midaan marnaba noqon doonin dagaalka ka hor qaabkii iyo sidii loo maamuli jiray lama oga saldanada Oman iyo Iran go'aanka ay ka gaari karaan gacanka Hormuz iyo sida loo aqbali karo marka la fiiriyo Ameerikaanka iyo qolyaha kale gacanka Hormuz 20% ayaa mara shidaalka guud ahaanba iyo waxyaabaha kale baaci mushtarka ee adduunka 28 February culays xoog leh ayaa ka jiray taasoo keentay tamarta iyo shidaalka iyo gaaska dunidu inuu markaas qiimihiisu cirka uu isku shareero wararka ka imanaya dhinaca dalkaasi Uganda waxa ay shaaca ka qaadeen in dawladdaasi ay ku guuleysatay guud ahaanba in dalka uu ka dhamaaday cudurka lagu magacaabo Ebola marka la barbar dhigo wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxa ay shaaca ka qaadeen maamulayaashoodu inuu si xooliya u faafay cudurka Ebola marka la fiiriyo dhulkooda oo ilaa dhimashadu iminka ay ka badan tahay 1500 oo ruux waxa la sheegay waa markii 17aad ee uu ka dilaacayo dhinaca Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waana marka la fiiriyo marar labaad iyo mar saddexaad marka la barbar dhigo inta jeer uu ku soo laabtay mararkii ugu badneed ee uu si aad u faafo laakiin su'aal ayaa jirtay ay isweydiinayaan maamulayaasha caafimaadka ee guud ahaanba labada dal sida ay ku dhacday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo inuu si aad iyo aad ugu sii faafo iyo in Uganda uu ka dhamaado laakiin maamulayaasha Uganda waxay sheegeen tirada cudurka dadka lagu arkay inay aad u yareed oo ay ahayd ilaa 20 qofood oo kaliya laba qofood oo kaliya ay u dhinteen toddobaadyo ka hor ayaa qofkii ugu dambeeyay uu ka raysay sida ay sheegeen haweeney iyadoo dhakhtarada oo lagu magacaabo Kazonga Mowinga oo ka tirsan maamulayaasha caafimaadka ee wadanka Uganda waxa ay sheegtay arrintaasi inay ku timid taxaddar xoog leh iyo waayo-aragnimo laga dhaxlay mararkii hore ee cudurka Ebola uu ka dilaacay amaba uu ku yimid marka la fiiriyo dalka Uganda waxa ay shaaca ka qaaday tusaale u soo qaadatay
qaabka iyo sida qolyaha caafimaadka ay u wajaheen cudurka ebola marka laga daweynayo ama laga dabiibayo dadka bukaanka inay ahayd midda suurtagelisay si aada inaanu u faafin. tusaale waxaa loo soo qaatay 2011 gabar 13 jir cudurka uu ku dhacay kadibna la dabiibay kadibna suurtagal ay noqon weyday inay noolaato oo ay dhimatay kadibna qolyaha qaabilsanaa caafimaadkeedu ay si aada ugu dadaaleen inay dhar xirtaan u gaar ah si aanay u taaban korkeeda, taasina ay qiil uga dhigayaan taabasho la'aanta iyo ka fogaanshaha inay keentay iyo taxadarku inaanu cudurku faafin. iminka waxay shaaca ka qaadeen marka la barbar dhigo dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, cudurku waa markii 17aad 50 sano ayuu kusoo laalaabanaya laga bilaabo 1976 oo iminka la joogo 2026 waa 50 sano 17 jeer dhinaca jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. laakiin Uganda waxay sheegtay 9 jeer inuu kusoo laalaabtay marka laga bilaabo 2000 ilaa iminka, taas oo u muuqata maamulayaasha caafimaadka ee Uganda inay isku dhiirigelinayaan inay mar walba feejignaan muujiyaan iyo taxadar haddiiba ay dhacdo cudurkaasi inuu soo laalaabto, iyadoo weliba dadkan dambe ee iminka 2026 dhinaca Uganda lagu dabiibay ay ku dhinteen 2, kuwa kalena laga daweeyay ay sheegayaan intooda badan inay kasoo gudbeen xuduudda u dhaxaysa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyo Uganda oo Uganda gudaheeda u soo galeenba in cudurka laga daweeyo. dalalka Venezuela iyo Dominican Republic ayaa wada hadal yeeshay ku saabsan qaabka iyo sidii xiriirkoodii diblomaasi dib ugu soo celi karaan, taasoo markii hore xiriirku uu meesha ka baxay kadib markii Dominican Republic amaba waddanka Dominica lagu magacaabahay uu naqdiyay amaba uu eedeeyay maamulayaasha magaalada Caracas qaabka iyo siday u maamuleen doorashooyinkii madaxtinimada ee Nicolas Maduro mar saddexaad lagu doortay 2024. dowladda Dominica waxa ay sheegtay oo ay wadamo badan la wadaagtay xilligaas inay cambaareeyaan in doorashada lagu shubtay oo sidii la rabay aanay noqon, dimuqraadiyadda laga fogaaday, boob iyo dhac uu yimid, taasina ay keentay maamulayaasha magaalada Caracas inay ka xumaadaan hadalka ka imanaya dhinaca Dominica, taasina ay keentay xiriirka in loo jaro. laakiin iminka wada hadalka labada dhinac ee bilowday ee Dominica iyo Venezuela waxa uu sheegayaa in boorka laga jafo wax badan oo labada dal dhex maray oo xumaana kadibna wada hadalka la sii wado kadibna la soo celiyo diblomaasiyaddii iyo xiriirkii u dhaxeeyay ee labada dhinac. marka daba la fiiriyo guud ahaanba maaha oo kaliya Dominica, wadamada kale ee xiriirka u jira ama xiriirka uu xumaaday Venezuela markay eedeeyeen madaxweyne Nicolas Maduro markii 2024 bishii July mar saddexaad uu sheegay inuu isagu si aada u guuleystay, laakiin culays badan uu yimid, dad badan la qabqabtay oo la xiray, mucaarad magac lana markaasi ay iska dhiibeen amaba ay galeen safaarado kala duwan oo ku yaala waddankaasi Venezuela, gaar ahaan magaalada Caracas, sida halka safaaradda Spain ay ku leedahay magaalada Caracas oo kale uu galay nin loo maleynayay inuu isagu guuleystay, laakiin la sheegay inaanu guuleysan oo la oran jiray magaciisa Edmond Gonzalez. markii dambana Spain ay diyaarad military uga soo kaxaysay magaalada Caracas oo la geeyay waddankaasi Spain. halkaad nagala socotaan waa channelkeena CID Pro TV oo aad subscribe saari kartaan si aad ula socotaan wararkiina iyo wixii ugu dambeeyay. balse markan ku soo dhawaada qadar xayisiisa oo ku saabsan Mega Dentist oo xarun lagu daweeyo cudurrada ilkaha ku dhaca 2 xarumood Istanbul, xarunna waxay ku taallaa Ankara ee dalka Turkiga. waxaan dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa in Mega Dentist oo ku taalla magaalada Istanbul 2 xarumood iyo meel ku taalla dalka Turkiga, qaar ahaan magaalada madaxda Ankara, in lagu talagalay in lagu daweeyo cudurrada kala duwan ee ku dhaca afka, taasoo macnaheedu uu yahay in lagu daweynayo si kastoo xanuunkaagu u jiro. waan qabaa waa aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo xanuunkaasi qaba inuu jeclaan lahaa in laga daweeyo. sidaa darteed dadka ka yimaada meelaha kala duwan sida Mareykanka iyo Yurub, Australia, New Zealand, Afrika iyo Carabta dhammaantood waxay diyaar u yihiin Mega Dentist. dadkan ila taageena dhinaca bidixda dhaqaatiirta buluga iyo weliba dadka kalkaaliyaasha iyo maamulkuba inay si fiican oo qiimo leh u soo dhaweeyaan sida horeba ugu soo dhaweey jireen. waan hubaa adigoo faraxsan inaad iman doontid, adoo farxaddaadu ay zaa'id tahay oo mahad celinay inaad laaban doontid. meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad la xiriirtaan Mega Dentist oo aad telefoonka shaashadda ka arkaysaan. anigoo cagta xaajiyana farxad bay ii tahay inaan idinla wadaago muuqaalkan iyo weliba inaan idiin sheego xaaladda wanaagsan ee halka ka jirtee lagu dabiibayo ilkahaagu xanuun kastoo ay qabaan. wararka ka imanaya marka la fiiriyo dalka Mareykanku waxay shaaca ka qaadeen nin isagoo Republican oo senator ah oo laga soo doortay gobolka Ohio oo lagu magacaabo Bernie Moreno inuu sheegay in ay laga maarmaan tahay jagada inuu baneeyo nin ka tirsan Congress-ka, gaar ahaan aqalka wakiilada oo la yiraahdo Max Miller, kaasi oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin aan hawshiisa gudan karin, awoodna aan u lahayn.
wuxuuna ninkan Bernie Moreno uu ku eedeynayaa Max Miller oo ay labaduba ka tirsan yihiin Congress-ka oo leeyahay shaqada ka tago isagoo dhibaateeyay oo dilay hadda ka hor dhibaateeyana gacanna u geystay gabar uu dhalay ninkan isaga ee Bernie Moreno oo gabadhaasi la oran jiray Emily oo la sheegay Max Miller inuu ahaa sayga iyada qaba waxay u muuqataa ninkan Republican-ka ee lagu magacaabo Bernie Moreno inuu ka xumaaday qaabka iyo sida gabadhiisa loola dhaqmay marka la fiiriyo ninkan ka tirsan aqalka wakiilada ee Max Miller oo uu ku sheegayo inuu jagada baneeyo kadibna uu raadsado qolyaha dadka la taliya si markaasi loogu baraarujiyo qaabka iyo sida uu u ogaan karo ugana adkaan karo shaqadiisa oo iminka aanu gudan karin sidoo hadalka u dhigayo ninkan la eedeynaya Max Miller waxa uu ahaa nin horey uga shaqeeyay marka la fiiriyo aqalka cad xilligii hore ee madaxweyne Donald J. Trump uu madaxweynaha noqday 2017 laakiin iminka waxay u muuqataa iyagoo labaduba ay ka tirsan yihiin wiil iyo sodogiisii hore markay tahay in uu u arko gabadhiisii Emily in la dhibaateeyay Bernie Moreno ninka lagu magacaabay oo haya laga soo doortaa uuna markaa taaqiil uga dhigayo iyo waxyaabo kale oo markaasi uu raacinayo inay tahay inaanu ninkani gudan karin maadaama uu aqalka wakiilada ka tirsan yahay shaqada looga baahan yahay ay muhiim tahay ayuu yiri ma gudan karo Max Miller ee waa inuu jagada baneeyo cadaadis kale ayaa jira oo ka imanaya qaar ka tirsan qolyaha dimuqraadiga ee Senate-ka oo iyaga laftooda oranaya Max Miller waxa haboon jagada inuu baneeyo shaqadana ma gudan karo iyo arrimo lamida ninkaas Max Miller waxa muddo ay isqabeen gabadha lagu magacaabo Emily Bernie Moreno oo ah midda uu dhalay ninkan senator-ka ah ee Ohio isagoo u gacan qaaday sida la sheegay oo dhibaateeyay gabar ay isu dhaleen dacwad badan ayaa jirtay laakiin aqritaankii way isfureen 2025 oo ah sanadkii la soo dhaafay warar kale oo dhaafsan arrimahan ninkan ku doodaya wiilku sodoga u ahaa in jagada laga tuuro isagoo la shaqada ma gudan karo iyo arrimo kaleba weli kama aanay soo bixin qolyaha kale ee iyagu ka tirsan labada aqal ee Congress-ka waddanka Mareykanka halka ugu dambaysa ayaanu ku soo qaadanaynaa culays xoog leh oo ka dhacay dalka Pakistan iyadoo meel police station oo ku taala degmo lagu magacaabay Swat qof isku soo rakibay waxyaabaha qarxa uu isqarxiyay saldhig police hortiis asagoo galaaftay dad gaaraya 14 ruux 22 kalena dhaawacay maamulayaasha saldhigaasi booliska waxay sheegeen aagga inay ku soo baxeen dad mudaharaadayay oo codsanayay in dhibaatada xoog leh iyo mar walba qaraxyada iyo dhibka dhaca iyo weerarada aagga ay dawladdu wax ka qabato amnigana la adkeeyo qodobkii loo soo baxay in wax laga qabto ayayba tani ka qayb tahay oo ninkan isi soo qarxiyay markuu soo istaagay halka baabuurta lagu eego ama lagu baaro ee booliisku ay baar islahaayeen inuuba qaraxii uu markaas uu faraha ka qaaday dhibkani maaha kii ugu horreeyay ee marar badan ayaa waxaa jira weeraro la qaado qolyo hubaysan iyo sidoo kale in la isu qarxiyo gaar ahaan aagaga ku dhow xuduudda u dhaxaysa Pakistan iyo weliba dalka Afghanistan dowladda Pakistan ee magaalada Islamabad dhowr jeer ay waxay eedeysay nimanay ku sheegtay Taalibaanka Pakistanka ee ka yimaada dhinaca waddankaasi Afghanistan iyadoo Taalibaanka Afghanistan ee magaalada Kabulna dhowr jeer ay beeniyeen arrimahaas oo ay ku tilmaameen haba yaraatee waxba kama jiraan laakiin weeraradu intii dambe way soo bateen marka la fiiriyo gudaha dalkaasi Pakistan waqti aan fogeen ayay ahayd sidaasi oo kale markii weerar lagu qaaday goobo kala duwan oo dawladdu ay leedahay dad badanna markaas la dhibaateeyay waxay sheegayaan maamulayaasha booliska ee Swat ee meesha dhibku ka dhacay baaritaano xoog leh in la sii wado oo ah qaabka iyo sida loo ogaan karo asal ahaan halka laga soo maleegay ninkan waxyaabaha qarxa isku soo rakibay ee kadibna saldhigga booliiska iyo dadka banaanbaxaya agtooda isku qarxiyay 14 qofna galaaftay 22 ka badanna dhaawacay intaas ayaan ku soo qatibaynaa wararkeennii channelkeena CID Pro TV ee wararka wareysiyada iyo waxaan u soo joogay oo aad mar walba kala socotaan xogtii ugu dambeysay dacallada dunida maxamed axmed xaaji maxamed cagmadhige iyo bahda CID Pro TV waxay idin leeyihiin subscribe-ka iloobinina haddaadnan haysan si aad xogta u heshaan mar walba tan iyo kulan dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh